Lo yellow فوصلوا وفراني ليعي وقاسو بالعني بالشرق وبالغير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول ملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. dhalinyaro casharkanaga maanta wuxuu dabayaala casharadeenii hore inoogu socday. waanagii kasoo sheekaynay bilowgii dhulka, waanagii kasoo sheekaynay aadam abuuristiisa calayhi salaam. iminka waxaan joognaa aadam kolkuu ilaahay abuuray, waa tii la yidhi malaa'igta u sujuuda aadam ha loo sujuuda. aadam waa tii malaa'igtii oo idil ay u sujuudeen. ibliis baa iska diiday inuu u sujuudo. ibliis waa tii laga soo eriyey jannada. ibliis kolkii hore wuxuu la noolaa malaa'igta buu la noolaa, jannadaasuu iskaga dhex noolaa. waa la soo eriyey. halkii ugu horreysay oo ku soo dhaca oo dhulkii oo ku soo dhaca waxay ahayd waddanka loo yaqaano iceland magaaladiisa loo yaqaano weliba demiburgir magaalo la yidhaahdo ayuu ku soo dhacay. halkaas weliba iminka waxaa la sheegaa gaalada qaarkood inay maaragtay xusaanba, walciyaadatu billaah, ilaah baan ka magan galnay. haddaba nabiyullaahi aadam calayhi salaam iyo xaawa waa tii la yidhi ku noolaada halkan, ku noolaada adiga iyo zawjadaada, wax alla waxaa doontaan ka cuna halkan, wax alla waxaa doontaan ka cuna, laakiin geedkan ha u dhowaanina, geedkan agtiisa yaan la tegin. shaydaan baa waxuu iskaga soo u soo bixiyey, wuxuu uga dhigay geedkii abatulcumri lagu jiraayay haddii qofkii cuna uusan abidkiisa uusan dhimanayn ayaa looga dhigay. waa tii shaydaankii ka saajcaliyey ee geedkii ay cuneen. haddaba jannadii markii laga soo eriyey waxay yimaadeen dhulka halkii ugu horreysay ay yimaadeen waa Soomaaliya. waxay yimaadeen halka la yidhaahdo buur eyle oo ama buur haybe haddii kale. haddaba buur haybe ama buur eyle ayay yimaadeen oo ilaahay keenay. ilaa laankan raadadkoodii wuu yaallaa. dad baa diidan, dadka qaarkood ma ogola. shaydaankii u ogolaadeen inuu kusoo daadegay demiburgir, waddankaasi iceland magaaladiisa demiburgir. wax alla wixii wanaagsan haddaad diidid, nabiyullaahi aadam calayhi salaam halkii ugu horreysay oo cagaha soo dhigo halkan bay ahayd, halkan ayay ahayd. waxa weeyaan waa sharaf bay noo tahay. micnaheedu maxay tahay marka? aadanaha inuu halkan ka aasaasmay waxaa caddayn sameeyeen aan idhaahde dhowr jaamacadood ayaa maaragtay waxay sameeyeen tirakoobka d n a-yada dunida ayay ururiyeen. d n a waxa weeyaan chromosomeska bini aadanka uu ka kooban yahay oo ku jira jirkiisa, bu'da bini aadanka laga helo ayaa la yidhaahdaa d n a. haddaba chromosomeskaas waa 46 chromosome, 23 bay u kala baxaan. aabbaha dhaxalka halkii ugu dhaafaa ekiska, hooyada in lagu garto inay hooyadii dhashay tahay wayda iyo ama ekis wayga lagu kala garto. arrimahaas ayaa la yidhahdaa horta d n a-ga. d n a haddaba caddayn ka dambaysa oo la doondoonayo ma jirto. beri horena waa ku celceliyey, iminka casharo badan way noogu jirtay. d n a ka xagga wax jira male, caddayn kaloo jirta male, ogow. waayo aqoontu waa inay shaqaysaa. aqoontu waa inay shaqaysaa. la yidhi alla lahaa qiila waqaala maaha caddayn, maaha caddayn ma noqdaan qiila waqaala. waxaan idiin sheegaya haddaba d n a-yada dunida ayay soo ururiyeen. waxay isku yeesheen labalaba bay isku yeesheen. labalabadii d n a-yada labalabadii ismaajgareeyey, labalabadii waxay kusoo wada biyo shubteen. soomaaliya bay kusoo wada biyo shubteen.
taariikhdii adduunka wax badan baa bedelmay haddaba ee soomaaliya laga qabay ama laga qoray qaarkood qoraallada qaarkood wax badan baa bedelmay waayo waxyaalo badan ayaa jiray oo soo baxay yacni nin carbeed oo baddaas maray wuxuu ka hadlay soomaaliya ka hadlay niman kaloo turkish ah niman kaloo isbaanish ah waxyaalo badan oo qoraallo badan oo laga sameeyey iyo waxaa sii dheeraa innaga dhexdeenna oo aan samaysanay abtirsiimayaal aan samaysanay kala duwan aan samaysanay abtirsiimo gelaysa maxaa la yidhahdaa maxaa la yidhaha caqiil bini abi taalib gelaysa abtirsiimo quraysh gelaysa waxbaansa samaysanay wixii marka waxaa diiday d n a-ga ayaa diiday waayo carab iyo innaga isku d n a ba ma nihi waanu kala gedsannaha laba d n a kala duwan ayaanu leenahay marka carabtii sideen ku galnay carab waxaa inaga dhexeeya keliya diintaa islaamka unbaa inaga dhexaysa isku d n a ma nihi abtirsiimana waa wax la samaysan karo abtirsiino hebel 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 halkaad doontid aad geyn kartaa shiinaad gashan kartaa haddaad doontid jasta keliya iskaa lumin xafid un laakiin caddayn waxaa noqon karaa mar kasta oo aan caddayn kale loo doondoonaynin waa d n a-ga soomaaliya waxaa la yidhaahdaa sab iyo samaale ama dir iyo daar ood ay yidhaahdaan intaba ma tagaan carab ma tagaan waayo d n a-gii baa u diiday d n a-ganaga wuxuu yahay e1b ayaa la yidhaahdaa carabna waayo qaarna waa t sidaasaan ku kala duwannahay dad carab oo inagu dhex nool way jiraan dad maaragtay waddamo kale ka socdo qarniyaalni dhex degan sidii yahuuddii soomaaliyooday sida iiraaniyiintii sidii maxaa la yidhaahdaa bershiyiin soomaaliyooday way jiraan laakiin tiradooda way yar tahay xataa dad reer yurub ka soo jeeda way jiraan laakiin tiradooda way yar tahay sida ingiriiska sida bortugiiska laakiin tiradooda way yar tahay soomaali marka la yidhahdo magaca soomaaliyeed la yidhaahdo oo soomaali ku abtirsada soomaali ku abtirsada soomaali waxaa ku abtirsada 7 wiil baa ku abtirsataa 7 wiil ayaa ku abtirsataa soomaali daarood soomaali jaanta soomaali duudse soomaali danagale soomaali qabadle soomaali aan ku soo celiyo fadlan raalli noqda waa or-aam soomaali kan todobaad or-aam soomaali danagale soomaali or-aam waa oromada danagale soomaali waa dankeliga jaanta soomaali waa wiilkan jaad degay duudse soomaali waa nimanka loo yaqaano tuudsiga loo yaqaana qabadle soomaali waa ninka loo yaqaana qibdiga loo yaqaana masaarida degan soomaali iyo daarood soomaali waa 7 wiilood weeyaan haddaba 7 wiil waa isku d n a waa hal aabbo ormada iyo innaga iyo cafarta isku mid baynu nahay waayo ilmo kuush ayaynu nahay kuush caruurtii kuush baynu nahay kuush bin xam bin nuux calayhi salaam waxa weeyaan markii qarqaadii weyneyd laga soo laabtay qarqaadii weyneyd waxaa laga wadaa daadadkii weynaa halaagii weynaa intii yareedoo ilaahay badbaadiyey ee ilaahay doonta ku badbaadiyey casharkan way noo soconayaan haddii alla yidhaah wixii su-aalaha qabtaan wixii commentaa qabtaan waad soo qori kartaan insha allah waa cashar maahan faalla maaha magaciisi maaha insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu